بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن أصحابتا قيمها إيو قايها له كسو دوادا solarportal.com waxaan idin haynaa barnaamij aad iyo aad u xiiso badan waxa caawa aan ka hadli doonaa arrimo aad u fara badan oo dhanka guurka Soomaalida waxaanu ka hadlaynaa furitaanka Soomaalida waxaanu ka hadlaynaa arrimaha jacaylka oo aad u xiiso badan waxa barnaamijka sidaan hore kaga ballan qaaday oo xayeysiinta aan u sameynay igu marti ah Miss Kaltuun waa gabar wariye ah heesaa ah arrimaha qoyska Soomaalidana aad uga falanqeysa uga hadasha Kaltuun ugu horreyn ku soo dhawow Solar Portal habeen wanaagsan habeen wanaagsan dhammaantaaba Cabdinaasir dhammaantiinba adiga iyo martida inta ku martiya iyo taageerayaashaada aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaantiinba masha Allah warinimada ka sokow anoo ku aqaan waqti aad u dheer ayaamahan YouTube waxaan ka daawaday adoo aan ku mooday Sahre Axmed say wax u jiraan ma bogeyn arintaas kolay waxaan iska ilaa yaraantayda aan iska jeclaa fankiyo niyadeedii qalbigayga iskaga jiray marka waxaan islaa bal horta tijaabi waxaad jeceshaad ka warkeentida marka waxay ahayd tijaabi ما شاء الله aad baan ugu faraxsanahay marka mawduuca waqti badan ayaan ka hadalnay waxaanu ka hadlaynaa arrimaha qoyska guurka jacaylka waxyaabo aad u fara badan marka su'aasheeda ugu horeysa waxay tahay arrimaha qoyska haddii loo eego farqiga u dhaxeeya qurba joogteena iyo dadkii wadankii ku noolaa maxaa is leedahay u dhaxeeya qurba joogga iyo dadkii wadanka ku noolaa horta qurba joogga iyaga xaaladooda waa xaalad kale dadka wadanka ku noolaana xaalad kale ku nool yihiin waxay ku nool yihiin different situation bay ku kala nool yihiin marka guurka qurba joogga iyo guurka wadankii kale waqti dheer buu qaadanaya inta laga faalloonayo ama la kala sheegayo haddana ka qurba joogga ayaa aad iyo aad u adag bay la tahay waa gartay gabdhaha Soomaaliyeed ee guurdoonka ah ma jacayl baa horeeya mise lacag baa horeysa waa qof iyo iimaankii kulli waxay la tahay hablo fara badan oo iimaankooda buuxo jacaylka horeysiinaya laakiin qaar fara badan waxaa jira lacagta horeysiinayana way jiraan marka guurka waalidka uu ku faraxsan yahay adna adan niyad u hayn ma la geli karaa kolley waxay ila tahay waalidku dee guurkii kulama gelayo oo gurigii kulama joogayo oo hoygii kulama dhaqayo qofka meesha maraya ama gurigan gelaya waa adiga iyo naftaadii weeyaan marka waxaad ugu ku faraxsan tahay mar walba fiican inaad geshid laakiin waalidka ila qanciyo way fiican tahay laakiin waalidku inuu isagu laftigiisa ku qanco waxaad adigu jeceshahay laakiin kaltuunay dadku inta badan guurdoonka waxay yidhaahdaan gabadhan ama wiilkan hooyaday qaasatan hooyaday ama aabbahay kuma faraxsana saa awgeed waa inaan iska daayaa labada farood mid uun ba qaadanayaa marka arrinta hadday timaado fartee la qabsan lahayd isleedahay kolleyba hooyadaana waa muhiim inaad hooyada qancisidna waa very important laakiin hooyadaana inay adiga farxaddaada eegto waa dee mid meeshii taalla hooyo walba waxay jeceshaa ilmaheedu inuu isagu faraxsanaado wuxuu ku faraxsan yahayna uu keeno hooyinka qaar baa jira iyagu dee yiraahda waxaan anigu jecelahay waxaan anigu rabo un soo raac laakiin ilaa maaha saas inay dee si saxan tahay hooyada fiican ama hooyada ubadkeeda ka fekeraysaa ama ilmaheeda ka fekeraysaa wuxuu isagu ku faraxsan yahay bay kolle raacaysaa maasha allah afar wadnood ama four hearts ma la yeelan karaa inteena badan odayaasheeni dhallinyaradeeni waxaanu nidhaahnaa afar ilaah baa ii baneeyey waana sax laakiin afar qofood adigoo isqabo isguursaday isjecel saddex dumar oo kale ma jeclaan karaa kaltuunay horta Cabdinaasir waa arrinta aad iyo aad inaad weydiisay aad baan ugu faraxsanahay thank you very much kolley diinteennu waxay tiri oo kitaabkeena ku qoran in ragga loo baneeyey afar dumara inay guursadaan micnaheedu waxa weeyaan waxa daba taagan intaasoo condition inaad intaad buuxisid ka bacdina aad mataqaanaa aad afartaa dumara guursan kartid ta koowaad waxa weeyaan inaad mataqaanaa wadnahaagu isku si u noqdo afartii dumar ahaaba oo aad mid walba saa tan u jeceshahay sidii kale aad u jeclaatid waxa kaloo ah dhaqaalihii inaad sintid mar walba tan waxaad siisid tanna aad siisid wax walba oo ha noqoto qalinkaan gacanta ku haya ha noqoto haddaad mid siisid tii kalena inaad qalinkay siisid inaad isku mar wada qancisid oo aad habbi ka wada dhigtid taasina may dhacaysaa bini'aadan may ka dhacdaa waa maya
wadnahaagu dhinacun buu u janjara oo carruurtaada ubadkaada adigu dhashay waaba mid aad xoog u jeceshahay midna aad mataqaanaa usii jaleecaysa marka ma dhacayso macnaheedu waxa weeyaan marka ma awoodida iska daa marka ragga Soomaaliyeed ee kuwa iyagoon intaaba buuxin xabadii kaliya oo iyagoon qancinin bay haddana saddex kale isku qaadeen marka macnaheedu maxay tahay adigan weydiinay marka ma xiisa jira mise waa arrin uu leeyahay dee Soomaalida sii badiyo jaceylka sii badiyo marka ma dhici kartaa in adiga aan ku jeclahay gabar cusub intaan guursaday iyadana aan isla qaabkaan isu jeclaado kaltuun ma dhici kartaa kolley wax xiisa u meela tahay oo ninku inuu marba gabadhii cusub xiisaynayo marba uu isleeyahay ba hadda tanna ka warkeen tan cusubna ka warkeen tanna ka warkeen laakiin micnuhu marka waxa weeyaan mid walba oo cusub xiisaheedu wuu soo dhammaanaya oo guriga unbaa la tegaya oo arrintii halkan bay maraysa ama ubad baa la dhalaya ama dee family unbuu noqonaya marka familigaas markuu yaraago inuu ka cararo haddana family kale uu raadsado ama gabadh kale uu xiisaynayo uu raadsado marka guur jacayl maaha waa xiisa waa nin marba gabadh xiisaynaya oo doonaya inuu gabadh cusub ka warkeeno marka waana xubbiga iyo xiisahana way dhacaan soomaa mar walba xiise waa wax yaro kooban markiiba iska baabaa laakiin xubbiga ka weyn waa gartay guurkii Soomaalida runtii wuxuu noqday ganacsi qaali ah dhalinyarada qurbaha ku nool ama kuwa wadanka ku nool maanta gabadha haddaadan geynin dukaamada Dubai ku yaala ee dahabka laga soo urursado ee laga soo iibsado iyo hoteelada Hilton ama Sheraton aadan ku dhigin waxay noqonaysaa gabadha waxay ku leedahay wadada iska celiyay ku leedahay dhalinyaradiina waxa lagu qasbay inay bangiye ay ka qaataan deyn waqti dheer isla markaana inta badan la yiraahdo burburkii qoysku meesha ka bilowda arrintaas maxaa ka jira kaltuun way jirtaa arrintaasi way jirtaa Cabdinaasir oo gabadh walba waxay isleedahay kolleyba mataqaanaay dee ninkani beri ka maalin buu ama iska tegaya ama uu kugu ciyaarayaaye wax la arki karo la muuqan karo ama dee maal ka reebo ama guur fiican ka reebo ama dee xasuus oo fiican aad mataqaanaad haysatid ka reebo ayay isleedahay laakiin hadday labadan qof markii hore dhab ay isku raaceen oo ay dhab isku jecel yihiin oo ay dhab isku rabaan darmo ayay ku wada seexan lahaayeen yacni lacagtani waxaani wax micno ay samaynaysaa ma jirto wadnahaagu hadduu qofka rabo aad qofka jeceshahay yacni sumali dhexda ka dololana iyaanu haysanin adaa habbi ku ah inaad ku raacdid ood mataqaanaa biyacad haddaad dunta wada cabtaan halka ku wada seexataan laakiin haddaan aan qofka rabinin oo aanad qofka dan iyo heela ka lahayn laakiin waxaad oranaysaa markaa dee waxay qabo wax isii ila warur baa koo xisabada beri kamaan wuu iska tegayaay laakiin maxaa loo gelaya kaltuun haddii aad ogtahay meeshan mustaqbal iyo dadku waxay yiraahdaan markay isguursanayaan nolosha faqiirnimada taajirnimada xanuunka ayaa la isku qaataa ay yiraahdaan marka la isguursanayo dadkan aan la deganahay ee gaalada markay isguursanayaan laakiin haddaanba sii ogahay qof aan olo lahaa ninkan kolley naaga kaloo iga raacaya ama waa iga tegaya marka walba aroos fiican aan ka qabsado dee mustaqbalkaagii soo kuma ciyaari karta haddii aad tahay gabar hadda la guursanayo cusub وصلنا سقبلنا عبد الناصر ويقول كني صدق وبطينا نقول كني سومالي وبطي الدمر كم سمايان كله قبل نقول كده ويكون عسنته ونك مرة دقور ساي عرض شو وي نك ده وهاي سنة سوي شوكسة لكن نك با مالك لو هنقطعها يا أما قبل كلا راعية أما يرو يعني ملها شحلين توصار كم تقناي إسكت ضبع الرية أو يدي بلوس شيء يا دون التلفون لوس الدلالون يا نك هالكنو فرديا ما هالكاسو مري مركا إن مشكلة حق الرجع أي كسعتها الرجع أنا شاكي فرحة بدن لا أبوري هدي أي دمر كود متقنا دعاد وهان لعين ودعاد ولتشوق لهاين أما حق بودو أما فرح ما تو أما لو كاتشب تصيد دون تعات وقبل دقور سدون هدو أركلها ونيدو لسلا كل حيلتها إني متقنا أي دمر فرح بدن كوجل لهاين without مال nothing ده وحول صباح باي سن كوجل لهاين. مركب ملده كرا أريمه هندو حكدم بيني من كان الصومالي ده بقول كيبا سجاش ملده كرا. ها nimanka Soomaalida ka damay 190 because raggii hore xitaa waxa la oran jiray mataqaanay ka aan waxba haysan xitaa markuu yara shaqaysto in yaro lacag uu helo ama ay isugu yara dhacdo watii la oran jiray jeebku haduu buuxsamo jeebka qooqa iyo xitaa ruwaayadeen marka la midayay jeebka ku oran jiray maxaad u qooqday jeebka ku buuxa marka jeebka hadda in yara shilma ku dhacana ma in buuxsamo wax weeyaan waa toos waa dhaqaaqay wadadu baxay قاموس كجاب كوقي ميلها اللي يقرأ. أوكي. waxaan filayaa heestii qatrada daahir dadkuna hawariyen waxa ku jiray erayadan oo ahaa
dadku dhammi ha weriyeen dareenkayga inuu yahay naftu kay la duubnay din inaan la jiibsado xilligan aan joogno qarnigan ma jiraa mise waa sheekooyinkii hore waagii hore ee aabbayaashina haweenka isku soo guursadeen kolley waa sheekooyinkii hore weylata marka hadda darintii way dhammaatay iyo jacaylkii u dhammaaday darintii jacaylkii imika u dhammaaday imika sheekada waxay u badan tahay uun mataqaanaa interest maxaan kaa helayaa maxaad soo gelinaysaa maxaan kaa faa'iidayaa iyo dee shaki fara badan oo meesha yaalla shaki hadduu meesha yaallo oo shaki yimaadana guur dhismaya ma jirto imika guurku wuxuu badan yahay ninkii gabadhii wuu ka shakeeyaa gabadhii ninkii way ka shakeeyaysaa haddaad aragtid waxaad arkaysaa gabadhii oo telefoonkii ninka daba cararaysa oo baadhaysa oo eegaysa ninkii oo gabadhii daba cararayo oo baadhayo oo eegaya hadday mataqaanaa ay baxdo yacni maxay ta daba socdo oo baadhay waxaasoo dhan maxaa keen waa shaki weeyaan marka dadku hadday kala shakeenna dabcan meeshii waxbaa yaalla waa gartay laakiin kaltuun haddii annagoo 20 jira aan isbaranno isjecel iska helay isguursaday oo jecel isu guursaday maxaa keeni kara in teleefonada aan kala qarsano oo shaki meeshuu ka yimaado ama jeebku qooqii aan sameyn maxaa keeni karaa isleedahay dhankiina dumarka eedda Soomaaliyiin haddii la idin yiraahdo waxa la yiraahdaa gabadhii ninkeeda naa kala weega iyada ka mas'uulan waa la yiraahdaa arrinkaas waxa ka jiraan kale Cabdinaasir labada dhinac way noqon kartaa dhinaca ninkana way noqon kartaa dhinaca qofta dumarana way noqon kartaa gabadha haddii ninkeeda 100% u fiican tahay oo ay 100% wuxuu u baahnaa ay siinayso ninkuna uu yahay nin iimaan qaba oo gabadhiisa ku iimaan qaba oo gabadhiisa jecel uu yahay wax laga kala shakeeyo meeshii ma yaalaan waayo dee labadii qof telefoonkoodii halkaasuu isku oolaya waa laba qof oo is aaminay bay noqonayaan laakiin haddii ay uu ninkii dustusayo gabadhiina ay isleedahay de mataqaanaa waaba kan dustusaya xadhkaa u sii jar marka guurka meesha guur ma yaalle awalba waxaa guur liqliqanaya buu ahaa mana sii soconay waana si guurka Soomaalidu ku badan yahay uu ku dumo waad ogtahay imika furitaanka aad iyo aad buu fara batay caruurtii Soomaaliyeed mar walba way silacsantahay mar walba wada aragtaa inay ku dayacan tahay labadii qof ee shalay isguursaday beri ka maalin way kala yaacayaan marka aad iyo aad buu inugu batay okay waxaa la yidhi aroosba aroosku ka qarash badan yahay waa ka furitaan dhow yahay waana ka iimaan daran yahay xitaa waxaa dhacday in arooskii videogii laga duubay oo aan la soo edit garayn ama la soo samayn in lagu kala taga meesha maxaa isleedahay ayaan daradan ku dhacday dadkeena Soomaaliyeed walaalo arooska kolleyba ila maaha aniga labada qof hadday israbaan is jeceliin is doonayaan inay qiimaha intaa leg iyo lacagta intaa leg ay ku kharash garayaan aroos ay ku kharash garayaan waxay ila tahay aniga inay labada qof hadday iyagu israbaan lacagtooda ay arooska ku kharash garan lahayn inay duco u samaystaan ama ay mataqaanaa iyagu intay israacaan holiday qurux badan ay laftooda iyagu ugu soo raaxeeyaan holiday ay u baxaan oo iyagu geliyaan yacni qarashka gelin lahaayeen meel kale ay gelin lahaayeen waayo arooskan aad dhiganaysaa dadka ku imanaya iyo dadkaad soo casuumaysaa lacagtaad ku kharash garanaysaa beri ka maalin dee waaba kuwii mataqaanaa arooska marka laga dararo xitaa iyadan albaabkiiba la dhaafin ayaa laga faalloonaya oo laga sheekaynaya lagu hayaya marka wax faa'iido kuugu jira ma jiraan aan ila ahayn isha balaadankuna ma fiicna qoys imika soo dhismayana I don't think so inay waxaas u fiican yahay marka dee waa aqoon darro way ila tahay inkastoo anigu aan soo kharash gareeyo soo burburiyo haddana waxay ila tahay inaanay wax qurux badan ahayn ee aad lacagtiina ku baabi'isaan ama masaakiinta siisaan ama aadinku naftiina holiday ugu tagtaan ama gurigiina ku hagaajisataan waa gartay soddonkii sano ugu dambeeyey masiibada ay ka dhacday waddankii waxyaabaha ugu yaabka badan waa furitaankii aad u fara batay laakiin waagii hore Soomaaliya runtii aad baa looga xishoon jiray hebel baa la furay waxay ahayd fadeexad aad weyn bay ahayd laakiin hadda waxay noqotayba in hablihii qaarkood ay samaystaan xaflad aad u weyn oo la yidhay caasho mise cibaado mise heblaaya lasoo furay dhaqankaa xusulka ka yimid dhaqankii la yaqaana ahayn Soomaalida walaalo waa dhaqan aad iyo aad u xun runtii waa dhaqan aad iyo aad u xun because guri dumay ama heer kale tegay wax lagu farxo maaha qofka gurigiisa markuu ka dumo laga yaabo inuu iska badboodayso ay xaflad iska tegaysa ay leedahay ama waan baarti garanaya ii kaalaya laakiin hoosta way ka ooyeysaa kolleyba gurigaaga markuu kaa dumo waad garan kartaa dhibaatada kugu timaado waad garan kartaa hadduu qofku u badleeya carruur leeyahayna kaba sii daranba marka guri dumay wax loo badboodo maaha wax xaflad loo dhigta maaha laakiin hadduu guriga kaa dumay oo ilaahayba uu qadaray
ilaahay baa qoray guurka ilaahay baa qoray furitaankana ilaahay baa qoray hadduuba kaa dumay oo mataqaanaaye uu guriga kaa burburay waxay kula tahay intaad 2 ragcadood iska tukatid inaad mataqaanaa masaakiinta meelaha joogta aad lacag dirsato taa ii soo duceeye aduu aad ducaysatid ubadkaaga aad u ducaysid in ilaahay wax khayr qabo meeshii uu ka baxay uu kugu bedelo ama ilaahayba dee isagiiba mataqaanaaye ilaahay kuu soo sahlo oo uu dib kuugu soo celiyo ducooyinku way fara badan yihiin laakiin haddaad baartiyeysa tiraadid ilaahay baa iga kaxiyey kiya kaalay la baartiyey waan faraxsanay hoostiina aad ka ooyeysid wax maaha wax jira maaha wax jira maahan okay dadkan aan la noolnahay ee reer Yurub iyagoo kala tegay oo isfuray waxaan aragnaa iyagoo xataa meel banaanka intay isu qaabilaan caruurtii isu gudbiya weekendiga asxaab ah weli friends ah waxay yiraahdaan for sake of the children ilmaha daraadooda u ah laakiin Soomaalideeni iska daay inay saaxiib noqdaan oo caruurtii eegaan caruurtii hortooda la isku leynayaa la isku caayinayaa social media la isku fadeexaynayaa marka dhaqankaas ma dhaqan aanu la nimid baa wadamadan reer Yurub ama North America mis waa wax maaragtay ka yimaaday xanaaqa iyo kala tagga dhanka guurka walaalo horta runtii labada qof waa ayaan darro aad iyo aad u weyn bay la tahay aadna waad ugu mahadsantahay inaad su-aasha ay weydiisid labada qof ee waalidka ama hooyada iyo aabuhu marka ay ubad dhaleen oo ubad meesha yaallo in mataqaanaa la is ixtiraamo oo aad adiguna ixtiraantid caruurtaada aabahood iyo isaguna uu ixtiraamo caruurtaada hooyadood aan idin wax xumaana suuqa aan idin isu gelin oo caay aan isu gelin waayo haddaad caydid caruurtaada hooyadood haddaad maanta caydid waxaad ogaataa inaad caruurtaadii un aad de usii dhigaysid mataqaanaa magac xumo dhilla xumo oo berri ka maalin la odhanayo de aabaha hooyadaaba waxaa ku lahaa u caayay ubadna kuma faraxsana aduun ku faraxsan tahay maanta cabdinaasir oo aabaha oo hooyada caayo oo mataqaanaa ama ay dhegtaada ku dhacday ama lagu soo sheegay miyaad ku faraxsan tahay aabuhu iyo hooyadu labaduba inay qadariyaan caruurtooda ay dib u eegaan waayo wax ka weyn baa meesha yaalla ubadkooda inay eegaan inuu ammaano lacag kuma taagna kasoo reer waaba la kala tegayba labada qof oo reer way kala tageenba meesha ubad baa yaalla inaad gabadhaadii aad ammaantid caruurta kuu dhashay ood wax wanaagsan ka sheegtid iyaduna ay wax wanaagsan kaa sheegto ubadka laftigooda ay tirado aabaha aaba wanaagsan buu ahaa hooyada hooyo wanaagsan bay ahayd oo ubadka laftigooda aad niyadda u dhistaan mataqaana waxay ka wanaagsan tahay ma jirto laakiin waan ku caay waan srifaynaa xitaa guriga dhexdiisa qaar baa isku dila oo caruurtiina ay arkaysa caruurtii meesha fadhida waayo caruurtii qalbi jab niyad jab unbaa kusii dhacaya wax kale kuma sii dhacaya marka waan u sheegaya hooyada Soomaalida oo wax aad u foolxun marka waxaan leeyahay way jiraan hooyooyin saa u dhaqma aabayaal saa u dhaqmaa way jiraan wax walba oo adiga kugu dhaca oo ninkan kugu sameeyo ubadkaaga awgeed u liq ninka wanaagiisa un sheeg isaguna sidaas lagin mataqaanaa ubadkiisa wax walba uu ilaawo uu sheego wanaaga mataqaanaa xitaa haddaan gabadh wanaagsan ahayn inuu yirahdo waa boqoradii adduunka ugu sarreysay malacag way ku taagan tahay طبعا هذا هي مهم تاعي كلتون waxaa jirta social media waxyaabo badan ayuu nagu soo biiriyay adoo hadda joogtid Mareykanka ama Canada ama meel kale anoo jooga Ingiriiska ama Soomaaliya iyo waxaan iska baranay social media Facebook aan iska baranay waan iska helnay isma jeclaan karno ilaan qofka ilama aad iska qaabishaan oo is aragtaan face to face ma jeclaan kartaan waa malaawaal marka haddii aan ku iraado kaltuunay adoo Mareykan jooga Ingiriis baan jooga waan ka helay waan ku jeclaaday reerkii aan ka doonto oo wadankii jooga arooskiina ha lagu dhigo Kismaayo ama Burco ama Hargeysa lagu dhigo taam yeeli lahayd kaltuun ma kale anu ma yeelan kale anu ma yeelan laakiin qofka aan nolosha la qaybsanayo waxaan jeclaan lahaa inaan barto inaan qofka nolosha la qaybsanayo inaan deeply noloshiisa iyo wuxuu yahay dabeecadiisa isagoo u dhaqmayo wuxuu qabto iyo diiniyan siduu yahay iyo akhlaaqeen siduu yahay wax walba inaan ogaado oo aan mataqaanaa qofka aan barto ilaa qofkii dhammaan nolosha la qaybsanayay laakiinse dad fara badan waxaa jira caynkaas sameeyo oo iyagoo aan is aqoonin hawada iska meersada hadhowna laga yaababa in ilaahay khayr qabo uga dhigo oo ay iskuba waaraan qaarna ay mataqaanaa markiiba kala boodaan laakiin aan wax fiican lama aha qofaad hawada ka barato aanad garanayn wuxuu yahay inaad naftaada ku aamintid waa gartay Soomaali haddaan ay ma kala naqaanaa jacayl iyo ka helitaanka maya bal waxaan doonayaa kaltuunay adoo fursadan qaaliga ka faa'iidaya bal dhanka gabdhaha inaad noo sheegtid
ragganna soomaalida ay ogaadaan sababtoo ah gabar qurux badan bay waxay ka arkayaan Facebook ama Instagram ama WhatsApp markaasay leeyihiin reerka layga doono marka kaasi ma waxa la yiraahdo ingiriiska last oo ka helitaan ah baa mise waaba jeclaaday marka waa maxay farqiga u dhaxeeya markaas si ay ogaadaan odayaashan soomaalida ee afarta guursada يعني waxaad uga jeedaa odayaasha ka guursanaya waad u jeedaa hawada jacaylka waxaan ka wada farqiga u dhaxeeya jacaylka iyo ka helitaanka ilaan haddaan ku yiraahdo waan kaa helay soomaalidu waxaan isu qaladnaa waan kaa helay waan ku jeclahay marka farqiga u dhaxeeya waan ku fahmay hadda si fiican ku fahmay waa kaa helay waan arkay walaalo waan arkay niman fara badan oo mataqaanay jidhay ku arkeen jidhay message ku soo diray jidhay ka oranayo waan kaa helay jidhay ka oranayo waan ku jeclay jidhay ka oranayo wax ay caynkan baatay oo iska ka amaanay xitaa soo ku garanayn waxa taa marka sometimes waxaan isweydiiyaa imaba taqaanin anigu waxaan ahay inaan bahalahay inaan mataqaanay dabeecad ugu xun inaan haysto inaan mataqaanay guryaha gubo inaan beenaley ahay inaan mataqaanay halkan baan ku soo fadhiistay oo sawirkayga badanka ka aragtay how do you sad marka ilaa xadka ay taras garaysaadi tirada waa ka helay waa ku jecelahay xitaa qaar baa waxay ku yiraan dumarka akoonkaaga qoraan lacag kugu soo shubeen lacag bay u shubaan sheekooyinka caynkaas oo kale fara badan marka waxaan oran lahaa qofka aad hawada ka aragtay wuxuu yahay ma garanaysid bahal inuu yahay xitaa dad intuu gogoostay guri ku haystay ma garanaysid halkaas maad ka aragtay iska hubso qofka oo baro oo mataqaanay u tag oo mataqaana qofka si de qofka waqti buu u baahan yahay inaad ku baratid Soomaha طبعا xitaa 2-3 cisho dad ku runtii qofka ma baran kartid waa ku soo hagooganaya salaam intii si wanaagsan buu ku tusaya laakiin intaad ku baran lahayd waxa qaadanaysaa de adigu yees bay qaadanaysaa intaad qofka si fiican ugu baran lahayd marka iska hubsan la degdeg fiicna ma fiicna degdeg waa gartay ma dhici kartaa inuu jacaylka yimaado guurka kadib tusaale ahaan laba qof baa isguursatay isjacayl laakiin jacaylkii hal mar kuma wada yimaado markii la isguursado oo waqti fiican la isla qaato oo la aado honeymoonka waxa la yiraahdo caruur xataa la dhalo marka jacaylka inuu si kobco ma laga yaabaa mise jacaylka Soomaalidu aan naqaano waa uun inta gabadha qurux badan waxaan la geliyaa todoba la geliyaa kaliya wuu jira walaalo horta qof iyo nasiibkii ilaahay siduu u qoray dad baa jira markay mataqaanaa ay isguursadaan ka bacdi yacni jacayl fara uu yimaado oo gurkoodii uu si fiican gurigooda u dhismo anu gabadh baan garanayaa iyadoo aan ninka garanaynin oo aan mataqaanaa allaali wuxuu yahay aan garanaynin la soo siiyey nin la soo siiyey isagaana soo dhoofsaday maalintay halka cagahaysi soo taagtay halkay soo taagtaan araggiis ugu horreysay ay aragto mayba aqoonba wuuna qabay marka wareer waaba loo sameeyey gabadhiisa ahayd uu kusoo degtay marka maantana waxay isu leeyihiin 6 carruur ay isu leeyihiin waana family aad iyo aad runtii isu jecel de may eegin nin siduu u eg yahay siduu u yaalay qaabku yahay may eegin laakiin kartidiisun bay eegtay ninku siduu u shaqaysanayo siduu gurigiisa u dabaranaya eegtay maanta waxay ku leedahay adduunka haddii yacni milyan nin haddii halkaa soo dhigo la yidhahdo ka dooro mid kamaan doorteen isagun baan la joogi lahaa marka kaasoo kale wuu dhici karaa mid kalena wuu dhici karaayo de mataqaanaa markiiba la kala boodo la isfahmi waayo kulle xagga dabeecadda waa gartay kaltuunay gabar baa i jecel sideen ku ogaan karaa inay jeceshahay ileen lagama yaabo gabar Soomaali intay ku soo hor istaagto ay ku tiraahdo Cabdi Naasir ama Jaamac ama Xirsi waan ku jeclahay inay face ku tiraahdo marka astaamo dumarka kaliya yaqaanayaa jira bal raggan odayaasha ilaa kunka dhaafay ay caawina daawanaya bal maxaa lagu garanayaa astaanta inantu inay jeceshahay in kale kale astaamaha inan iyo inan baa labadaba bay la tahay astaamaha qofka lagu garan kara qofka jecel yahay waa inuu hadalka ku badiyo inuu mataqaanaa hadday telefoon noqoto uu marba kusoo yaro badiyo soo gargaraaco hadday meel wada degan yihiin inay marba dee socodka ku yaro badiso dariska dhinacawsi marto ma dhinacawsi marto waraysi inay dadka waraysato oo dadka weydiiso oo dadka mataqaanaa mar walba qof u tagto ama saaxiibka kugu dhowo mar walba intay u tagto ay waraysato weydiisay tiraado hebel ma aragteen siduu yahay alla muxuu sameeyey sheekadiisa ay u noqoto dee sheeko aad iyo aad u xiiso badan garanaysaa oo aad mar walba ay jeceshahay in mataqaanaa magaciisa lasoo hadal qaado in laga sheekeeyo waa la iska fahmi karaa marka kolleyba dee adiga asxaabtan baa maa kuusoo sheegaya ama adiga u dhacdo waad fahmaysaa dee gabadhan markay ku aragto inay ama kufaysaba ama ay hoos foorarsanayso ama ay iska garan kartaa
aad baad u mahadsantahay waxaa la yidhi jacaylka nimanka soomaalida wuu naaqusaa ay xaasaskooda u leeyihiin markii caruur ay dhashaan arrintaa maxaa ka jira waa arrintaas way jirtaayo inagoo dhan baa waxaynu nahay xiisaynu ku dhisannahay intaa yar hore la cusub yahay guurku cusub yahay ayaa lays xiiseeyaa oo mataqaanaayo qofku uu very nice qofku yahay kind yahay qofku mataqaanaayo hadal wanaagsan kugula hadlaya ku soo dhaweynaya mataqaanaa laakiin maalinta ay run tahay ee meeshii ubad yimaado ee xaaladii adkaato dhabarku ku jeedinaya marka situationkan adkaaday iyo waxaan isku adkaaday iyo gabadhii oo mataqaanaa kolleyba isbedeshay oo meeshii caruur timi waxyaabo fara badan baa isbedelaya marka isbedelka faraha badan leh inuu arko ma rabo indhuhu ka qarsanaya marka wuu ka meeraysanaya ama dibaddu u baxaya ama fareen fara badan oo kale cusub uu samaysanaya ama wuxuu leeyahay shaqan ku maqnaa buu leeyahay ama gabadhii buu hadduu doono niyadda ka dilaya niyadda ka jabinaya oo hadallo xunxun oo aanay u qalmin buu ku odhanaya mar walba naawaad gabowday naawaad islaamowday naawaad naaxday nacaynka baad noqotay naya wax kugu falaya sheekooyinka caynkaas oo kale ah oo weliba ay aad iyo aad harga ugu badan yihiin marka way timaadaa niyad jabka faraha badan leh wuu yimaadaa marka uu meeshii family yimaado ama ay caruuri meeshay timaado inay niyadda layska jabiyo dumarka laftigooda iyagu qaar fara badanoo waxaan arkay dumarka laftigooda dee aan yaraysanin oo iyaguba hawsha dhinaceeda kaga jira oo hadduu kelmadda yaraado kelmaddii mid kasii daran kusoo celinaya laakiin waxaan leeyahay nolosha dhabtay waxay timaadaa marka ubad meesha yimaado in si dhaba dadka ay naxariisiisu tusaan walaaloo niyadda isu dhisaan halkaad ka caayi lahayd gabadhaada inaad niyadda u dhistid ood ku taa waad qurux badan tahay waad wanaagsan tahay caynkan baa tahay cidi kaama horreyso oo aad niyadda u dhistid dibadda markaad u baxaysid inaad faraawal yar usoo iibisid inaad wax yar qurux badan usoo iibisid inaad isku daydid inaad carruurtii la ilaalisid inaad isku daydid inaad waqti siisid dibadda u saartid de gurigan baa kusii adkaanaya gabadhaada inay kusii jeclaanaysa waxaana aaminsanahay gabadhi inaanay nin wanaagsan marnaba ka tegin waa gartay ingiriisku wuxuu yidhaahdaa midlife crisis haddiiba 40 la gaaro qofku wuxuu noqdaa wuu isbedelaa nimanka aad bay isu bedelaan ingiriiska ama dadkan reer yurub annagana waxaan idhahnaa maamaha baa jirta la yidhaahdo 40 jir 40 uma harin marka odayaasheenii soomaaliyeed markay 40 gaaraan khaasatan kuwada qurba joogta ah maxay waddankii ugu laabtaan iyagoo 50 jira ay gabdha 18 sano jirtay u guursadaan walaalo waa crisiskaas unbaa maskaxdayga ka dhacay bay la tahay waxaan joogay hargeysaan joogay marka waxaan arkay oday adigu 50gii kor u dhaafay baan arkay oo waddamadan qurbaha ka yimiday marka wuxuu guursaday inan yar oo 17 years old buu guursaday meesha wuxuu deganaa 5 sano deganaa marka waddanka 5 sano deganaa marka inanta yarayd ayuu wuxuu ku yidhi waxay tahay imika waad weynaatay dee oo wuxuu yidhi min weynaa tahay waa min yar raadsadaa markaas inanta yarayda niyaddii ka jabtay oo markaa ilmo yar dhashay uurna leh laba dhalbeen uurna way lahay ilmo yarna way dhashay ayaan la kulmay marka waxay igu tiri waxaan ku ninkaagime waxay igu tiri min yaradii buu la jooga ani waxay igu noqotay wax yacni surprise moogtay masaan ku yidhi intaad jirtaa waxay tiri imika 17 baan buuxiyey imika ilmo yaro markaa meesha dhacdhacay adug 1 years oolana way haysataa uurna way leedahay marka waxaan ku yidhi 17 adoo ilmo laba carruur haysta ayaad noqotay min weyne noqotay haabay tiri marka waxaan ku yidhi odaygaagu markaa intuu jiraa waxay tiri imika 50 iyo 2 may tiri 50 iyo 3 caynkaasay tiri I don't know wallahi 50 iyo 2 50 iyo 3 marka waan yaabo waxaan 50 iyo dheeraad ayaa 17 jir marka waxaad yaa loola yaabaa Soomaalidu kaliya ku aragnaa dhaqanka caynkaas ma laga yaabaa guurka lagu degdego carruurta faraha badan in la dhalo reerka oo aan dalxiis ku raaci karin carruurtii oo inta badan hadda aan maqlo North America iyo Europe xabsiyada ku jira qaarkood la dilay qaarkood muqaadaraad gala qaarkood maaragtay dhibaatooyin soo gaarta xitaa haddii loo hadlo qofkii 9 ama 10 carruur dhala uma kaxayn karo dalxiis ama Tunisia ama Morocco ama waddankii xataa waxay noqonaysaa inuu 15,000 pound uu ku bixiyo ama dollar uu ku bixiyo ticketki ku dhoofi lahaa ma laga yaabaa guurka lagu degdegay carruurtan badan ee qurbaha lagu dhalo in arrimahaas ay dhibaato ay keenaan ma laga yaabaa horta inaga hadin Soomaalina walaal waan iska dhalnaa un carruurta labada qof markay isguursadaan way iska dhalaan un I don't know wax lagu xisaabtamay ma garanayo laga yaabaa abuhu inaanu shaqaynba
oo aanu mataqaanaa isba kalifin oo aanu shaqo tegin laga yaabo hooyadu inay waxaana caruur ku biisitay ku maqan tahay oo aanay shaqaynba marka waxaa jira caruurtii marka inay faraha ay caruurtii ka baxayso caruurtii inay silcayso caruurtii inaanay helaynin wax holiday u kaxeeya inaanay helaynin wax mataqaanaa daryeela inaanay helaynin guri even ku filan oo ay caruurtii ku nafisto inaanay helaynin even iyagoon holidayba loo kaxaynin oo tigidha loo jarin haddana gurigooda dhexdeedii ayay dayac aad iyo aad u fara badan ay kala kulmayaan markay caruurta aad u badan yihiin runtii marka dhashan faraha badan le ee la iska dhalayaa waxaynu dhahnaa waa ilaahay baa bixiyey waa rasaaqad baynaan yes waa ilaahay baa bixiyey oo qof ilaahay de mataqaana ugu talagalay inuu diyo dama celin karayno laakiin haddana waxa ilaahay wuxuu kugu yidhi spasri de ilaahay kugu yidhi marka caruurtan faraha badan le iska yarayaan odhan lahaa haddii aanad de afford garayn karaynin inaad kulligoodba ka fargaraysaan waayo ma anu 3 caruur aan haystaa 24 hours 7 waan cararaa waan shaqaystaa naasiro cabdinaasiro haddana caruurtayda yacni sida caruurta kale la iskuullada ah ee la dhigtaa ay u socdaan ama u labsanayaan de ma awoodi karayo runtii ma awoodi karayo ilmuhu wuxuu rabaa shoes wuxuu rabaa 120 baano buu rabaa wuxuu rabaa jacket 70 baan ama 90 baan buu rabaa inuu ku socdo waayo kuwa caruurtii iskuulka la dhiganayay baa xidhan oo sitaa marka iyagoo dhan waa inaan intii u iibiyaa intii u xidhaa soo maaha 3 baan la rafanaya marka haddaan intaa kasii badiyo yaa ila ka fargaraynaya marka waa logic marka haddee soo suuqa gali maayaan marka caruurtii carari maayaan oo jeelasha ku guran maayaan oo daraaga iibin maayaan oo caruurtii soo nolol kala raadsan maayaan markaa sulci maayaan walaal marka iska yarayaan caruurta inkastoo soomaalida aad u jeceshahay dhashay aad iyo aad soomaalida qurba joogta haddii aan nahay raggeeni inta badan ma shaqaysano wax ma barano fadhi ku dirir ayaa waqtigii aan ku dhamaynay maxaa naga duway qowmiyadaha kale ee ku nool qurbaha qaasatan Europe iyo North America de kolleyba inaga xaggayna balwadda aad inoogu badnayd oo waatuu jaadku inoo joogay mugta imikunba jaadkii inala ka dulqaaday iminkana I think so iminkana de waxa lagu soo geliyaaba dhuumashaaba iminka lagu soo geliyay qaadkii marka waxa dib inoola hadhay inaga horta runtii waxay ahayd lambar 1 qaadka ahayd oo de raggeenu waad ogeydba inay marfashyada ay dee mataqaanaa u shaqo tegi jireen xaggii dadku xaggan uga shaqo tagayaan iyagu marfashyada u shaqo tegi jireen marka aabbo waxaad arkaysaa caruurtiisi aan kala aqoonba aabbo waxaad arkaysaa 10 sano marfashuun u shaqo tegayay oo laakiin caruurtiisi kala aqoonba caruurtiisi kala garanaynba kumu ahaa iyo hebel buu ahaa iyo kan buu ahaa marka xagga shaqada UK aad baynu ugu liidanay laakiin iminka intii jaadka laga joojo waxaad moodaa inaan soo yaro dadnaano dadka qurba joogta ah ee qoysaska ah sidee ula jaan qaadi karaan sababtoo ah inta badan waxa ayaan darra iskuulada ugu wanaagsan waddanka Ingiriiska haddii aan ka soo qaado kale markaan tago caruurta aan la tago waxaan arkaa dad aad u fara badan ajaaniba dadkan hindida ah dadkan shiinaha ka yimid dadkan caddaanka laakiin weli ma aan arkin haddaan arkan waa wax aad u yar dad Soomaali ah isla markaana kuma arka meelaha inta badan caruurta la geeyo aabayaal way jiraan iyo hooyooyin laakiin haddii la arka xataa 90% hooyooyin ayaa wada aabayaashina meesha waa ka maqan yihiin marka ummadaha aan la noolnahay maxaan wax la qaybsan weynay ee kaltuun ummadaha aan la noolnahay walaal waxaynu wuxuu la qaybsan kari weynay because waxaynu inaga nation waxaynu nahay kala janjaraynu nahay aabiya hooyadii islama haystaan oo mataqaanaa same level maaha hooyadii maaha hooyo mataqaanaa saynu u badan nahay hooyadu waa tan caruurtiiba ku dawaqsan caruurtii dhex joogta inteena faraha badan leh saynu u badan nahay de luqadii baaba inaga walunsanba uma garanayno luqadii waddankii ma garanayno aabihii hadduu doono luqad baaba garanaya waa kan de mataqaanaa meel kale u rawaxaya meel kale ku maqnaa marka waxaynu nahay ummad hadhsan oo in fara badan xaggaa dambe soo socotaynu nahay ummad hore u socotay oo kaa horeyso ilaa maanta dhan soo lugeynaysid miyaad gaadhaysaa waa maya ma gaadhaysid marka intaynu gaadhayno I think so it's going to take years and years bay gaadhaysaa intaynu dadka higsanayno oo say u socdaan iyo qaabkay u socdaan iyo sida carruurooda u dabaranayaan iyo aynu gaadhayno waxay nagu qaadanaysaa years bay nagu qaadanaysaa qoys ahaan ma aaminsan tahay arrimahan la yiraahdo dhaqan celis oo xilliyada iskuulka uu xiran yahay caruurta loo celiyo waddankii iskuulkii marka la furan la soo celiyo oo dhaqan celiskaas ma jiraa mise waa mala awaal Soomaalidu ay ku sheekaysato kolley way iska fiican tahay ilmaha inaad sanadkii mar tigir u jirto waddankiisa geysid sa u soo barto
dhaqankiisa iyo suu soo barto dalkiisa inuu dal leeyahay inuu soo barto languageka ilmuhu inuu barto waa very important bay u tahay way u fiican tahay ilmaha luqadiisa yaqaanaa carruurta kale uu ka tacliin fiican yahay runtii ilmaha ka dhisan luqadda soomaaliga ka dhisan luqadiisa si fiican u yaqaanaa carruurta kale aan aqoonin soomaaliga aqoonin uu ka dhisan yahay runtii marka way u fiican tahay ilmuhu inuu soo barto waddankiisa inuu tago inuu dhaqankiisa soo barto inuu afkiisa hooyo uu ilmihii soo barto aad iyo aad bay ugu fiican tahay laakiin celi oo intaad geysid meesha iskaga kaala ilmihii dabeetana halkaa wax tirada dhaqan celis ilmuhu markaan waalidka la joogin waxyaabo fara badan buu cabdinaasir uu baranaya jaanisi fara badan buu helayaa ilmuhu marka hooyada iyo aabuhu ilmaha mar walba inay garab taagnaadaan oo ay ilaaliyaan oo ay mataqaanaa wixii xun ka ilaaliyaan oo ay mataqaanaa wixii wanaagsanna ay faraan waa muhiim laakiin haddaad meeshii ka baxdid aad meel cidlaa intaad ku turtid tana dhaqan buu soo baranaya aad ka timaadid ka filo ilmahaagi beritoole inaad dib ugu noqotid isagoo jaad cunaya isagoo sigaar cabaya isagoo dad xunxun bartay isagoo mataqaanaa caaytamaya isagoo akhlaaqdii ka dhimatay intaba inaad dib ugu noqotid markaa dhaqankii aad kala cararaysay mid kasii xun buu kuusoo baranaya kaltuun aad ayaad u mahadsan tahay waxaa la yidhi qofka iminka jooga noocuu doona ha ahaado haddii aad doonaysid dhaqankiisa iyo wuxuu yahay inaad ogaatid meel dheer lagama daya facebooka la tagaa baa la yidhi facebookii faa'iidooyin badanna wuu keenay khasaarihiisna way badan yihiin waxaad arkaysaa dee waxyaaba aan aad u foolxun lagu sameey waxaad arkaysaa in dumarkii lagu fadeexeeyo waxaan aragnay marar badan oo indhaha aan saarnay waxaan ka hadalnay oo kale oo ah rag dumarkoodii ay kala tageen oo maaragtay xataa sawiradoodii iyagoo qaawan soo geliyay oo ku fadeexeeyey marka ma la dhihi karaa qofka haddaad doontid inaad baratid haddaad doonaysid waxaad un aadaysaa profilekiisa facebook ha waan kugu raacsiisanaytaa bcause qof walba akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo wuxuu siduu u dhaqmo halkaas baad ka helaysaa qofna isma qariyo haddaan qofku lahayn facebookyo kale fara badan oo aanu qaarna intuu xumaan kusoo sameeyo kana aanu wanaag ku samaynin laakiin qofka caadiga saxda aad u garanaysid leedahay qofkan waa qofkan facebookiisii haddaad doonaysid inaad baratid halkaas baad ka baranaysaa qofku wuxuu yahay qofna isagoo qof wanaagsan ahayn isma wanaajin karayo qofna isagoo mataqaana qof wanaagsana isma xumayn karayo marka halkaasaad ka baranaysaa qofkaakasaad ka daalacanaysaa qofku wuxuu yahay marka qofka muxuu ka faa'iidayaa tusaale ahaan gabdhaha soo gelaya facebook ay soo gelayaan xor bay u yihiin sawirada inay soo gashtaan waxay doonaan ay samayn karaan marka maxaa ku qasbay in ragga qaarkood mise waxay ka baqaan oo waabsada ama intimidation ku sameeya dumarka ayaa ku sameeya maxay dumarka uga baqaan qaasan dumarka Soomaaliyeed maxay uga baqaan oo markay arkaan ereyga ugu soo horeeya ay caay iyo waxaan loo baahnayn soo ma dumarkay ka baqaan oo facebook soo galay ama hadlay ama waxay doonaan sameeyay maxay ka baqaan wala horta anigu baryahan aad iyo aad bay ugu fara badan yihiin oo rag fara badan oo caayaya dumarka waan arkay oo dumarka ataagaya waan arkay laakiin waxana way nagu cusubba ragga laftigooda shoog baa haysta hala yaabino waxaanay hore u arag ayaa kusoo kordhay waayo hore umay arag dumar fara badan oo Soomaaliyeed oo facebook isticmaalaya oo sawiradoodii soo dhigaya oo mataqaanaa hore umay arag waxaan way ku cusub tahay marka ummad waxaanu nahay de yacni yara waan oran karaa ummad waxaanu nahay yara dambayso oo mar walba habsan oo yara badow waynu nahay moogtay marka wixii markay kugu cusub yihiin aad wixii aragtid shoog baad qaadaysaa waxaad isleedahay waxaan u samaysay marka halkaasay caydi ka bilowmaysaa waa dhaqan xumo waa caynkan kan bay samaysay waa bahal indhacda waad aragtay waxay usoo qorayaan iyagoon xaq u lahayn adduunyadan aynu aragnay aynu joogno de waad aragtay waa qofku freedom buu ku nool yahay wuxuu doono qofku samayn karaa waa qof iyo naftaada iyo shakhsiyadaada adiga lagu raaciyay yacni qofku soo ama qof mataqaanaa kusoonkaasaatay maxaad facebook waxa ugu samaysay ama sawirkaada dhigatay caynkeeda maxaad waxa u samaysay laga ilaahay ku abuuray isaad u taallo inay kuga caayaan which is wrong qofka bini'aadanka ah ilaahay baa abuuray waayo ilaahay baad caayaysaa qof kule caynkaas ad u egtay anu caynkaas ma nakaysiin ilaahay baa ii ekaysiy ilaahay baa saan ii dhigay marka waan arkay yacni qalqalocyo fara badan waan ku arkay laakiin waxaan leeyahay waa iskala qabsanaynaa kolleyba waa soo gaaraynaa aad ayaad u maastay ugu dambayntii Soomaali haddaan nahay mustaqbalkeena muxuu noqon doonaa sanadada soo socda haddii la nool yahay ee qurbaha annaga iyo qoysaskeena carruurtaan dhalnay carruurtay sii dhali doonaan
ma la iloobi doonaa ma la oran doona waxaanu ka nimid dhul ku yaala bariga Afrika ma la oran doonaa mise wadankii ayaa lagu laaban doonaa oo meeshaanu ka dhisaynaa Soomaalidii soo jirtay qarniyada soo jirtay mise Soomaali way u sii dhamaanaysaa markaa walaal waxaan aad iyo aad u jecelahay runtii aad iyo aad waxaan jecelahay wadankeena inaynu u laabanayno insha Allah Soomaali oo isku wada duuban ay wadankooda u laaban doonto in Ilaahay ka dhex saari doono dhibaatadan iyo waxaan dhex taagan Ilaahay ka dhex saari doono in Soomaali shanta Soomaaliyeed oo dhan ma taqaanaa ay noqon doonto dad isku qalbi furan oo walaalo ah oo dantooda garta ubadkeena iyo caruurteena saynu u badbaadino ma taqaanaa inaynu isa saamaxno horta marka ugu horeysa waxba iskuma haysano xalaayo waxaan isku haysanaa ma jirto marka aynu isa saamaxno marka ugu horeysa marka labaad aynu iska ilowno kaniyo yahay waayo sport sheet adiga aan maanta waynu hadlaynaa Cabdinaasiro adiguna Soomaali baad taana Soomaali baynu ku wada hadlaynaa dad walaalo ah baynu marka micnaha ay ku sameynaysaa maxay tahay inaad igu tiraado iyo gabadhan waa qabiilka iyo kan waa qabiilka iyo kan waa qabiilka micnaha ay noo sameynaysaa maxay tahay waa badweynimada qayb ka mid weeyaan oo aynu weli ka tagi laanahay inaynu istakoorno aynu isla daba soconno yacni shaambada yar xuno qabiil la yiraahdo isla daba soconno waa qabiilka Soomaalinimada aynu ka raacno walaaltinimada aynu ka raacno aynu diinteena ka raacno waxa inta weyn inaynu ku midoobi karnaa waa inaynu jinsiyadeena iyo diinteena aynu isku raacno ما شاء الله هذا يضم مع سنتهاي كلتون موسى هذا يعني أقول فرح سنة هاي برنامج كان قيمة له وأنا سميني راشين كلتون ووريه رنتي هذا قيمة بدن أو تي في ده اللوية كانوا سمر كان قطر الظاهر أي بوس كإمك كسائر ربطة مركا مردو وحن في ليا إن إن شاء الله هاي سأسلق قادرة كلتون هذا يضم مع سنتهاي ولا له إن شاء الله وأنا لنا مرة كلنا وأنا سمينا وكعزومي إلى دوير هذا إن شاء الله والله عبد الناصر أنا أدبك وكم هالعلني أدنى وكو سلامية شقة قبتي أدو هيسي Soomaalidana halka kasii wad baan ku leeyahay runtii I'm very impressed with you adiga saad laftigaaga aad ma taqaanaaya dadka u waanisiin saad wax wanaag la yiraahdo aad uga shaqaysid marka thank you very much waa ku leeyahay mar walba ready baan ku ahay هذه أظن ما سنتهاي بين ونكسر دمان أصحابته وسلامتهين سي قيبية تذكرنا داونيا أنا كلتون إنتان مركله هذا كل مدونه وحنا كجت جيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته